badan wax ka sheegana waa aragnay 4.5 dadku waa lagu goynaysaa siyaal dhahay antaas ma aaminsanin ana waxaan isleeyahay 4.5 isbedel badan lagu soo gaaray ayadoo dadkii la tirin oo sanduuq la dhigin ba inta la isku fahmay oo dadku is dhageysteen ba 4.5 isbedel badan ku soo dhaceen aniga waxaan ku doortay maadaama si kastaba ha noqotay lagu heshiiyay ee dadku ay barteen inaanan dadkuna ay iska wada arkaan oo ay ka muuqdaan muraayada iska wada arkaan oo ay ka wada muuqdaan bani aadan ilaahu baa xaq soori karo wax bani aadan sameey wax baa ka dhiman laakiin aniga waxa ila tahay barnaamijka ugu roon oo hadda maanta wax lagu dhisi karo dadkana lagu qancin karaan oo arka isbedel badan waan soo aragnay dhowr jeer la isku soo bedelay oo isbedel ka soo dhaceen marka isbedelooyinkaas hadii loo sii dhawaado oo kalkan haddana inta 4.5 wax lagu dhiso waxa isleeyahay dadka in la tiriyo dadku inay nabad helaan ayaa la gaarsiin karaa ku tayo mar walba ay yeelan karaan sababtoo ah iyadoo 4.5 lagu keenay dadku nooc kasta oo aqoon looga baahan yahay iyo capacity asoo 4.5 lagu keeni karaa qabiil ama dad aanan dad tayo leh aan haysan ma jiraan marka dadka dhahayaan 4.5 dad tayo leh kuma imaaneen ma aaminsan aniga dad tayo leh lagu keeni karaa isbedelada dhacay shaqooyina qabsoomay hadii hadda waxaan 4.5 ahayn dadka la aadiyo degmo kuraasta degmada hadii la sheego yaa ka imaanayo seel lagu imaana waa la isku dilaa marka dadka Soomaaliyeed in gadaal loo celiyo oo dagaal daba lagu celiyo anaga ma ku talinayno waxaan isleenahay midaan la bartay ha lagu dhameystiro